بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لا قيارة أصحابتا أن جعلها جنال كي واني وعي قلين كحيرون ولا ليال سودو هذا إن شاء الرحمن لما ولا لا يوعصبنا من سودوين يا حان ليه سودو هذا قاعد فرنك سودو هذا أنه عو ما سنتين سبسكرايب كينا أذيك هذا نداوانين ولا هديه كوتا مركي أوريسيو جنال كان داوتيد مسنات كو قنعدو حيوان جنال كسوق لنو وحان كاعد سنة حيتان جنال سبسكرايب نود هديد balkan afurtid si mar walba cusubaan soo dhigno ay kusoo gaaraan dhammaantiin isku duuban waxaan idin leeyahay jasaakumullah khayran aada u mahadsantihiin sida aad kusoo aragteen mowduuca fiidiyowgaba waxa uu ku saabsan yahay waxay tahay ama ma aragtaa mowduucan uga dhigay fiidiyowga labadan cuno kala baraka badan kalana macaan laakiin ani meeshaan tahad uma soo fariisanin insha Allah inaan cuno ma aragtaa aan idin soo bandhigo laakiin sida ka muuqata mowduuca asaas ayuu ma aragtaa ka tarjumaya laakiin ani kelmad yar ayaan rabaa insha Allah oo ma aragtaa arintaas xiriir la leh ama cunada xiriir la leh insha Allah ka hadlo kelmadiidaasna waxaan rajeynayaa inay ma aragtaa cuno ma aragtaa ay ka guda weyn tahay sax cunadu waa shayga ma aragtaa waxyaabaha oo daruuriyaadka oo qofka bani aadamka aysan naftiisu ka maarmin yani jirkiisa uu ka maarmin laakiin haddana kelmadeedan waxaan rajeynayaa inay noqon doonto kelmad ma aragtaa ruuxaaniyada qofka daweyso ama ma aragtaa ruuxda xiriir la leh ee kaliya aan cuno kaliya la oran karin sababta aan mowduuca ugu doortay magacaasna insha Allah waa idin sheegi doonaa waan fahmi doontaan intaan kelmadda wada insha Allah haddii aad si fiican u dhuuxdaan oo u dhageysataan waxa aan ma aragtaa mowduuca horta ugu horeyn ugu doortay waxay tahay sida badan waxaan sameynaa waxay tahay markii aan cunada karinayno ama markii aan waxyaabo kala qabanayno waxaan sameynaa wax aan waqtiga isku dhaafino waxaas aan waqtiga isku dhaafinane maanta adduunyada la joogo fidnadu way iska badan tahay waxay u badan tahay ma aragtaa ilaa mar raxim rabbi maahan dad badan waxay sameeyaan waxay tahay ama hees baafka laga qaadaa ama heesa la dhageystaa ama telefoon baa inta la soo qaataa wax badan lagu hadlaa iyadoo waliba aan wanaag la sheegayna xan iyo ma aragtaa waxyaabo noocaas aan ku mashquulsanahay on telefoonka kaga hadalno sidaas ayaa ma aragtaa cunada lagu kariyaa markii aan ku leeyahay cunada kaliya ma ahan ogaado waxyaabo badan ayaa ma aragtaa aan sidaas u sameynaa aan isku dhaafinaa laakiin cunada waxaan tusaale ugu soo qaatay waxay tahay markii la isku barbar dhigo labadan cuno aan ma aragtaa adoo sidaa ma aragtaa dhaqankaagu yahay ama waqtiga isku dhaafinaya aad ku karisay iyo cuno adoo huduu ah oo degan oo kalaamka Rabbul Izza ku daaran yahay ilaa isaa dhahay maxay heetoole qalbiyada waxaa daweeyo ama ma aragtaa ruuxdu waxay ku xasishaa waxay tahay kalaamka Ilaahay marka kalaamkaas Ilaahay asoo ku daaran cuno aad karisay isbarbar dhig barakadeeda iyo macaankeeda iyo faa'iidada ay leedahay naftaada u leedahay iyo cuno aad karisay adigoo ma aragtaa muusig iyo hees iyo xaaraan dhageysanayo ilaa waa labadaas soo maahan ama wax Ilaahay raali ka yahay ma aragtaa waqtiga la isku dhaafiyaa ama wax Ilaahay aan raali ka ahayn adiga qiilka doontidba u doone waqtiga la isku dhaafiyaa marka labadaas cuno marka saas ayaan ma aragtaa aan isugu barbar dhigay saas ayayna tahay sababtaan ugu soo qaatay mowduuca ciwaankan aan uga dhigay marka haddii aan isku barbar dhigno waxa weeyaan farqi weyn u dhaxeeyo qof walba caqli leh uu sabaxaysa uu fahmi karaa marka aan taas ka gudbo iyo mowduuca sababtaan u doortay waxaan rabaa insha Allah inaan idinka baraarujiyo aniga ayaan ugu horeeyo ma aragtaa baraarujintaas cid ay ku socoto maahan idinka kaligiin waxyaabahan aan waqtiga isku dhaafino markii aan hawl maalmeed ka wadano saameyn adduunyo aakhira weyn ugu yeeranayaan nabiga ayaa yiri sallallahu alayhi wasallam qofka bani aadamka ah wixii uu laazimo ayuu ku dul dhintaa marka aayad kale quraanayna waxay ahayd ilaaha raxmaanka ah qofkii ma aragtaa ama dadka muttaqiinta Ilaahay adduunyo aakhira buu sugaa si marka labadaas arin baad ugu sifoodid oo adduunkaaga aakhiradaada ma aragtaa aad faa'iido u heshid noloshuna kugu xasisho waxaan ku leeyahay ka digtoono ka taxadar waxyaabaha mar walba carabkaaga uu laasimayo waxa hubanti ah hadii mar walba dhagaha ay hees kugu jiraan hadii mar walba aad hees dhageysanaysid hadii mar walba telefoon iyo waxyaabo ma aragtaa macna daraad waqtiga isku dhaafinaysid hadda mar walba waxyaabahan nugnahay entertainmentiga dadku ay dhahaan xaaraanta aad ma aragtaa waqtiga gelisid qasab waxa ay haddana inuu carabkaaga ma aragtaa
maaragtaa la qabsanayo. waad 24 saac laasimeysid, waad sheegaysid, waad ku hadlaysid, waad ku hadaaqaysid sidii loogu talagalayna aysan ahayn oo ay ahayd in dikriga carabkaaga maaragtaa uu 24 saac ka qoyanaado si ilaaha raxmaanka uu kuu sugo markii maaragtaa nolosha kasoo gabagabooday aad adduunyada ka bixiysid. laakiin waxaan ognahay dad fara badan waxaa qaatumadooda xumeeyay. ilaahay qaatumada hanoo hagaajiye waxay tahay waxyaabo xunxun oo adduunyada markay joogeen ay laasimi jireen. iska ilaali, ka digtoonow si aysan taa kuugu dhicin. iska ilaali oo waxaan ku leeyahay ka digtoonow mar labaad in aad waxyaabahaasiiti aad ku xil dheeraatid naftan aad 24 saac aysan wax kale ku mashquulin aan ahayn inay maaragtay hees dhageysatay inay macno darro iyo xan 24 saac ka shaqeyso. haddii aad sidaa noqotidne waxaad khatar weyn ugu jirtaa. aniga nafteedii naftiinaba waxaan khatar weyn ugu jirnaa waxay tahay in aan ilaahay qaatumada naga hadlayo. ilaahayna qaatumada nagama hadlayo, laakiin sabab bay noogu noqon kartaa. waayo carabkeena ayaa la qabsaday. waxaa laga yaabaa inaan hadhow keli weyna kelimada tawxiidka ah. ilaahay baan magan uga nahay. ilaahay naga magan geliyo inaan maaragtaa qaatumo xumo ku dhimano, laakiin khatarteeda ayay leedahay. si ilaaha raxmaanka kuu sugo, si maaragtaa nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisa kuugu rumoobo oo aad maaragtaa kelimada waxa aad laasimteed aad ugu dul dhimatid. waxaan ku leeyahay laasim wax ilaahay raali ka yahay. waxaan ku leeyahay laasim wax ilaahay raali ka yahay. dhageysa quraanka, asaga qalbiga kuu qaboojinaya, xasiloonida deganaashaad ka helaysaa. wax walbo aad qabanaysid waxay doonaan ha ahaadaan baraka ayay kuu yeelanayaan. ugu waxaa aniga tijaabo aan ku arkay waxay tahay haddii aad maaragtaa mar walbo barkii aad dhageysan lahayd heesi iyo wax kaleetood aad waqtigaa gelin lahayd, haddii aad mar walba tahay qof qur-aankii ku tacalluqo oo dhageysanayo oo xiriir la leh oo markuu hawl haysto iyo markii maaragtaa uu hawl haynin iyo mar walba maaragtaa dhagihiisu ay ka qoyan yihiin kalaamka ilaahay mar walba ay maqlayaan, haddaa tahay waxaa dhacaysa waxay tahay in markii aadan dhageysanaynin qur-aankii oo uusan kuu daarnayn in carabkaaga cala duul aad arkaysid asagoo iskaga hadaaqaya. waaba wax aad adiga xataa ugu talagelin, waayo naftiibaaba wax kale ku mashquulsaneen Soomaali. marka waxaan ku leeyahay naftu mar walbo mashquul la-aan ma ahaanayso ee adiga naftaada hogaami oo saydareey oo wax ilaahay raali ka yahay ku mashquuli. ogowna jihaad waxa ugu fiican waxay tahay ka naftaada aad la gashid. marka waxaan ku leeyahay siban fitan badan baa lagu jiraa, wallaahi aaday u fitan badan tahay. oo waxaan ku leeyahay qof naftiisa ka adkaaday wuu yaryahay, ilaahay nagu daro dadkaas. laakiin walaalahay waxaa idinku waanaa waxay tahay inaad fidnadaas ka digtoonaataan, inaad maaragtaan naftiina la dagaalantaan oo aad naftiina maaragtaan ku xajisaan oo ku adkeysaan inay waqtigeeda waxyaabahaas ay geliso. waliba haddaad xataa ka maarmeynin inaad waxyaabaha entertainmentiga aad samaysid, waxaan ku leeyahay iska ilaali in aad waxaasiiti aad u badsatid si aysan quluubtuna kaaga adkaan, qaswatul qalbi uusan kuugu dhicin, haddana aysan maaragtaa sabab kuugu noqonin qaatumada ku xumaato oo waxaas carabkaaga uusan ula qabsan. carabkaaga waxaa loogu talagalay inuu noqdo lisaan daakir shaakir inuu noqdaa loogu talagalay, laakiin looguma talagelin inuu 24 saac heeso, looguma talagelin 24 saac xan aan wadno, looguma talagelin waxyaabahaasoo dhan. waxina loo abuuray iyo hadafkii adduunyadan aan u imaanay ma aha. ilaahay adinkiiyo anigaba waxaan nooga rajeynayaa waxay tahay inaan noqono kuwa ilaaha raxmaanka uu ku sugo kelimada tawxiidka fi dunya wal aakhira insha Allah. ilaahay taasaan nooga rajeynaa. ilaahayna waxaan nooga rajeynaa fidnadan faraha badan ee maanta adduunyada ka socoto inuu ilaahay barbar naga mariyo. ilaahayna waxaan sidoo kale u weydiisanaynaa waxay tahay cizadiisa iyo fadligiisa ilaahay inuu nagu irsaaqo inaan rabbi subxaanahu wa tacaala uu waqtigeena noo barakeeyo, noogana dhigo kuwa uga faa'iideysto sidoo asaga ugu talagalay insha Allah biidnillaahi albaari. kelmadaydan cid gaar kuma jeedo, laakiin waxaan u jeedinayaa waxay tahay nafteyda iyo naftiina. ilaahayna ha naga dhigo kuwa hadalka intay maqlaan kiisa san qaato kiisa xunna isaga tago biidnillaahi albaari. aad iyo aad waxaa ugu mahadsantihiin sida quruxda badan aad mar walba ila socotaan. insha Allah intaan fiideo waxay ku kulmeen waxaa idinkaga tagayaa waxay tahay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.